dee dhalinyarada aan iskuul ka hayn aan isku meel dhiganayni aan ka haro aan dee fasalkiina aan fasalka afraad geliyay dee aan maanta wallaahi billaahi tallahi hadan ka sheekeeyo anuu inanta waan jeclaaday jacaylkuna ceeb maaha dhimbiilaha jacaylka iyo qiisooyinka saamaynta leh ee laga xaro inta badan waa kuwa shaki la geliya run ahaanshahooda marka laga tago midkii boodhari oo la sheegay inuu naftiisa xataa u waayay jacayl waasey adag tahay wakhtigan in Soomaali dhexdeeda boodhari dabadii laga qoro qiisooyin jacayl oo heer dhimasho gaadhay waxaynu se sheekadeenan ku eegaynaa saqiirkii la saranseeray jacaylka dhibaatooyinkii uu ka maray xadhigii xabsigii ilaa cisbitaalkii dhimirka ee la geeyey shakhsiga aynu ka hadlaynaa waa Xamse Ibraahim Jaamac wiilkii ku kaliyeystay jacaylka ee dadka qaar ay ku tilmaameen ninka waalan waxay marqurays waayeen saaxiibadii waxa uu ka hadhay hayaankii waxbarasho kubaddii uu ciyaari jiray ilaa uu noqday keligii socod aamusan oo maanka ku haya inantii uu jeclaaday qisadanina waxay ku bilaabmaysaa sidan murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeeshay meel halise murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeeshay meel haliso magacaygu waa Xamse Ibraahim Jaamac waxay ku dhacday qiso noloshayda saameyn aad iyo aad ugu yeelatay heeraan gaadhayna waxbarashadii dugsiga sare aan sanadkan geliyay fasalka afraad aan kaga hadho dhalinyarada kubadda wada ciyaaraynay aan isku asxaabtan hayn aan kaga hadho aan noqdo anigu keligii socod aan meel cidlaa soo istaagay waxa meel cidlaana soo istaajiyay maaha waa qof aan aad iyo aad u jeclaa naftayda ka jeclaa indhahayga nuurkooda ka jeclaa ayaa waxa dhacday in aan sababo yaro daraadeed aan isku seegno inaan yahay naftaan ugu aamina oo oynisee inada mustama ayaa kayba hore intaan sababa isku seegtaydan gelin sidoo ku bilaabmay jacaylkaygu wuxuu ku bilaabmay horta inantu heer cirgaabo hooda la yiraahdo ma garanaysaa adigu maalin 2021 sanadka bishii labaad ayay xaafadayda ku soo biirtay way marka hab noocay ugu soo biirtay habkay ugu soo biirtay waxay ahayd anagu horta anigu waan diidanaaba inay guriga timaado ka guuriyay ka soo horjeedaaba anu ahaa haddana kay saameynta ma ku yeelatay anay noqdo ma garatay waxa dhacday in maalin labadii duhurnimo labadii barkii meelaha ay xaafadayda ku soo biirtay iyadoo kaga soo biirtay xaduu xaafad kale joogtay marka xaafadina si ugu soo biirtay maxaa ilaa family baatiin family baan nahay xataa si family ahaan ugu soo biirtay family ahaan ugu soo way adigu inanteen maabti baan nahay si family ahaan ugu soo biirtay qof walbana nolosha qof si waxaan filim baad dhacay nolosha saameyn aad iyo aad ugu biirtay kaga tagtay maantana meel aan ka soo kabsado ma joogo qof alla wadaagta sheeko adduunka haddaad ka weydo qalinku nafis buu wataaye waraaqo ku qor oo intaada way markay ku soo biirtay family iyo qoyskiina guriga ku soo biirtay waliba adigu aad kamid ahayd dadkii qofkii kaliya diidanay guriga timaado sidee bal xudheysay wax isbedelay adigu laakiin ala kulli xaal anu ma gurigan maamulo
islaantii iyo dadeed ba guriga ku tiid keento أنا أنا هو يداي ana hooyaday maxaan ka qaban karayaa daan واي tawaka واي markay gurigeeda la soo degtay maxaa isbedelay sidee sheekadii qisada ku bilaabantay waxay ku bilaabmatay anigu waxaan ahaa nin kubadda cagta ma garanaysaa aad iyo aad u xiiseeya oo 24 hours marka inta aan iskuulka tagayo laga reebo aad iyo aad u ciyaaro kubaddana aad ugu wanaagsan adiga kubadda waxaan ka ciyaari jiray bal weerara iyo libin macalinkaygana waxa la oran jiray Axmed Nuur Cawil ma garanaysaa adigu kubadda aad iyo aad baan ugu wanaagsaneyn positionkayga waan adkeysan jiray marka waqtiga ugu badan kubaddan ku bixin jiray intaan isku baranayna waxay noqotay waqtigan isbaranayna adigu inay aan walaalnaha guriga joogta mool baan lahaa marka hadee moolka la dhuuba ku jirta la dhuuda inaan wada ciyaarno aan tayar aan markaan yara bil camal noqotaan la dhuudi la ciyaaro kabacdi dee aan siraado inaan tayar walaashay ka yaray dee waqtiga isku dhaafi kabacdi hoodana dee waa inanta iyaduna walaashay kama reebi karin kalna la ciyaarun baan lahaa halkaas markaa ka bilaabay sheekada adigu waxay gaadhay inaan isku aad iyo aad isku fiicnaado dad isku wanaagsan noqdo waa ninkii nacbaa doonayay aan doonayna inay guriga ku soo mirto isku wanaagsanaan aad iyo aad baan isugu soo dhawaan waxa dhacday markaan aad iyo aad isugu soo dhawaanay adigu qof mar walba ku dhiirigelinaya kule xamsoogu inay yaro fiican baa tahay arday baa tahay biri kamaal mustaqbal bad yeelanaysaa iskuulkaaga tag subax marmareedii toosin jirtay iyada ay dhiirigelinaysaa marmar ay dhiirigelinaysaa oranaysaa waqtigaaga inta ugu badan waxbarashadaasi mustaqbal baa ku sugaya adigu dee si ii dhiirinaysa qof ii dhiirigeliyo horta weligay ma arag marka ilaahay laga boqo horena oo ma arag adigu erayadii oran jirtay wallahi ilaa imika waa xasuustaa erayada igu dhiirigelinaysiina erayo iminkaan markaan xasuusto nolosheeda aad iyo aad saameyn ugu leeyahay maanta aan iskuulkayga kaga haran iminka qoomo ku jiro ma garatay maanta dee fasalka afraad baan ahaan lahaa foontirigii sanadkii foontirig waanigan jeelka ku qaatay 6 bilood la igu xukumay lixdii bilood imtixaankii teeran bilood iyo sheekada isla gaadhin markii inta ay waanooyinka iyo dhiirigelinta ku siisay ay ku jiray xamso waxbarashada iyo nolol sameeyay mustaqbalka ku sugay ay dhiirigelinta badan ku siisay waxa xigay qof horta mar walba ku dhiirigelinayo niyadda ku dhisayo horumar kula doonaya damac uu ka geliyo oo jeclaanaysa anu inanta waan jeclaaday jacaylkuna ceeb ma garanaysaa inanta waan jeclaaday umana sheegin marka anuun baa ogina jeclahay inanta ilaa intaan u sheegin ka qarinaysa wallahi ilaa muddo 2 week meelaha dheeraad ayaan ka qarinay laakiin waan qarsan kari waayay waxaad qarsataana way ku qarsadaan marka dee waa jacayl aad iyo aad u xad dhaafay adigu baan u qaaday adigu xaafadu ma oga marka qof mar walba 24 hours ka marka jaamacad marka oranaysa soo qowlalay raac waxaan u baahdo way siinaysaa waxa la waxaan wax walba wanaagsan ila doonaysa tay waa jeclaanaysaa waxaan u baahdanaysay in isku badaan ciyaaro lacagta 100%ga 15% ay bixin jirtay kubadda iminka dhalinyarada dambe waa iska lacag bahayd sanadkan adigu inanta wallahi wuxuu maalin waxa dhacday maalmaha kamida waxaan ku dhiiraday inaan raado hoodagan ku jeclay walaal aan runta u sheego saacadu waa 2 duhurnimo wadadkuna way kala hurdaan waqti jaanis aad oran karo waa jaanis casarkiina jaamacad bay u baxdaa marka casarkii hadaan u dhigan lahaana way iska tigi waxa dhacday inaan toos ugu imaado hoodo aan ku iraahdo hoodo walaal aan ku jeclahay adu ciyaar bi moodayso waxay u tii xamsi walaal malaha waad iska ciyaaraysaa xamsi iga ciyaarto walaal hoodo walaal ku ciyaar maayo baan ku qof si dhaba ku jecel baan adu su'aalo maskaxdeedii ku taway ka weynaatay su'aashaas markaan hadalka ku odhi su'aashaas maskax maalin lama hadlin anna qooma ma galayba adu waxa dhacday maalin in ay aan jawaab ka helo maalintaasuna waxa ay ahayd ahay murugada jacayl ma hadho akayga ku yeeshay meel halise ahay murugada jacayl ma hadho akayga ku yeeshay meel haliso
shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga idahab